shirkaas waxaa la iclaamiyay 15 bishii February oo bishan ku jirnaa waxa hadii jeer iska dhaca oo la og yahay waxa weeye shirarku waqtiga hadii jeer loo madlay hadii jeer kuma dhacaan way yara jiitamaan marka taasina wax mushkilada ma leh marka waxa weeye shirka guddiga qabanqaabada intii la shaqeynayay hadii madmadow la geliyay ama se hadii la kuro yahay la yiri dib baa loo dhigay waxa dib loo dhigay oo shirka dib loo dhigay waan anagu ognahay oo si official oo hadii la kuro yahay Suudaanka guud ilaa ayaa iclaamiyay oo isimka ugu sareeya oo iclaamiyay ma ay jirto waqtiga taa awgeed iyadoo laga duulayo waxa weeye shir maanta ay taariikhdu tahay 22 bishii labaad waxaanu joognaa magaalada Ceelbu annagu isugu jirnaa guddiga qabanqaabada shirka haday tahay heer guddidii 35 xubnood ka koobnayd iyo haday tahay heer degmo magaalada Ceelbu odayaashii iyo guddiga qabanqaabada intii la shaqeynaysay waxa maanta hadal jeedinteedu daaran tahay in aan u cadeyno bulshada mandaqada daljoog iyo dibad joogba in dib loo dhigay shirkii ku mudaysnaa 15 February dib u mudayna loogu sameeyay inuu ku beegmo waqtiga bisha May 20keeda ujeedada aanu shirkan u qabanay waxay tahay maadaama shirkii hakad ku yimi haday rabadaan tahay haday diyaar garow tahay xaaladda ceer gaabo haday tahay dagaalada ka socda gobolka Bari iyo Calmiskood haday tahay codsiyo ka yimi dadkii la rabay inay shirka ka soo qayb galaan oo qurba joogtu u badan tahay oo yiri waqtiga dib ha nolo ku dhigo waxa laga maarmi waayay in shirka dib loo dhigo oo loogu mudeeyo bisha May 20keeda shirkan jaraa'idii caawa aanu qabanayno bisha February 23keeda 2025 oo caawa ah wuxuu daaran yahay aan rabnaa inaanu la wadaagno community-ga iyaga ama dadka iyaga la wadaagno in shirkii loo madlanaa oo reer maakhir ay u madlanaayeen in loo soo wareejiyay magaalada Baran marka waxa weeye shirka hadii madmadow la geliyay ama se hadii la kuro yahay la yiri dib baa loo dhigay waxa dib loo dhigay oo shirka dib loo dhigay waan anagu ognahay oo si official oo hadii la kuro yahay Suudaanka guud ilaa ayaa iclaamiyay oo isimka ugu sareeya oo iclaamiyay ma ay jirto taa awgeed iyadoo laga duulayo waxa weeye shirku waxaanu u sheegaynaa community-ga maakhir dibad iyo gudaba in uu shirkii wali oo hadii la kuro abaabulkeedii lagu jiro